gacaliyow Theophilus waxaan ku soo qorayaa wax kasta siday u dhaceen si aad u ogaateed wixii aad maqashay oo ku saabsan dubanaha Ciise Masiix inay run yihiin. waqtigii uu boqor Kaysar Augustus u haystay Roma, boqor Heroodna uu wakiil ugu ahaa gobolka Yuhuuda, Ilaah wuxuu u soo diray malakul Jibriil si uu ugu waxyoodo gabar la yiraahdo Maryam oo bikra ah kuna noolayd tuulada Nazaret. maryanay ha cabsan ilaah baa ku doortay waad warasan doontaa oo aad dhali doontaa wiil oo waxaad ku magacaabi doontaa ciise alla waxaan ahay bikro saan ku uuraysanayaa ruuxa quduuska ayaa imaan awoodda ilaah way kuga hagoogsami doontaa cunuga aad dhali doonto wuxuu ahaan mid aad u weyn loogu yeeri doonaa wiilka kan ugu sarreeya kadibna Maryam waxay booqatay in adeerteed Elizabeth oo marleys ahayd ilaahna mucjisadiisa ku uuraysatay. Elizabethey Maryaney ina adeer soo dhawow haweenoo dhan baad ugu barakaysan tahay welina waxaa barakaysan cunuga aad sido bal fiiri salaantaada markuu maqlay farxad buu dhaqdhaqaaqay cunuga aan sido qalbigayga rabbiguu ammaanaa ruuxayga ayaa ku faraxsan ilaaha badbaadiyaha waxay iigu magacdari doonaan ummadda oo dhan tii barakaysnayd ogeysiis dhammaan raggani rasaradow amarka soo baxay boqor Kaysar Augustus waxaa ku jiri doonaa tirikoob dhammaan deegaanada Galiile iyo Yudaya dadku waa inay isku diiwaan geliyaan asalka halka ay ka soo jeedaan sida awgeed Yuusuf wuxuu aaday tuulada Baytulaxam ee ka tirsaneed gobolka Yudaya si ay isaga diiwaangeliyaan isaga iyo Maryantii u doonayd. markay halkaas tageen Baytulaam meel ay ku hoydaan ayay waayeen waxayna ku hoydeen moorada xoolaha halkaas ayay canugii ku umushay. habeenkaas meesha waxaa joogay ari jirro bannaanka Baytulaxam arigooda ku daajinayeen si kadisa ayaa malaa'ig ugu muuqatay ilaahna nuurkiisa ku iftiimiyey dhinacyadooda. caawa tuulada Baytulaxam waxaa idinku dhalanaya badbaadiyaha duubanaha Masiixa oo ilaah ballan qaaday inuu u soo dirayo dadkiisa oo dhan isla markiiba erijirtii Baytulaxam ayay tageen waxayna arkeen canugii dhashay oo dardhax jiifa ilaah ayay ammaaneen farriintii wanaagsanaydna ku naadiyeen inuu dhashay badbaadiyaha dadka oo dhan.